قدوميها حسبك midnimada iyo horumarka iyo nabadda iyo horumarka madaxweynihii hore ee dalka professor xasan sheekh maxamuud waxaan salaamayaa xildhibaanada sharafta leh labada gole siyaasiyiinta miisaanka iyo mugga leh ee ka soo qayb galay waxgaradka iyo aqoon-yahanka iyo dhallinyaradii haweenka ee runtii hoolkan sida quruxda badan u soo camiray baan dhammaantood salaamaya waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waa maalin farxad la weeye inay ummadda Soomaaliyeed oo inta wujuhda taybka isku yimaadaan iyagoo ka hadlaya mustaqbalka siyaasadeed ee ummaddan Soomaaliyeed oo ku abuuray xisbiga midnimada nabadda iyo horumarka waa kalimaad aad u waaweyn weeye miisaankooda la weeye culayskeeda la weeye xajmigeeda la mas'uuliyaddeeda la weeye waxaan u malaynayaa xisbi kanoo kala mooyaan inaanu ka bixi karin muhiimadaha waaweyn halkan ku qoran in muxuu ahaayay ay sidii ay sida ay tilmaamayaan uga soo baxaan waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waxay xilligan u baahan tahay waa midnimo weyn waa wadajir weyn waa walaalnimo weyn waa dawlad ay wada dhistaan oo wada leeyihiin weyn waa sinaan iyo cadaalad taasay ka turjumaysaa muxuu ahaayay midnimada in ummadda Soomaaliyeed isku timaado xilli aan ku jirno tafaraaruq intii federaalka ku midowday ay sii kala socoto waxaan u malaynayaa inay fariin culus tahay inay muxuu ahaayay isxilqaan xoog la tahay inuu xisbigu u guntaday muhiimadaasi midnimada ummadda Soomaaliyeed xilli la iloobay inay koonfur iyo waqooyi isku soo noqdaan Soomaaliland iyo Soomaaliya dib u wada midoobaan wada hadalkii muxuu ahaa uu nuqsaamay ama uu gurayba gebigood waxay u baahan tahay in ummaddii Soomaaliyeed la isku baadi goobo la soo celiyo muxuu ahaa midnimada runtii waa muhiimad xooggeeda la weyn waa muhiimad u baahan dhabar adayg weyn waxa muhiimadda kale ay tahay weeye aan ugu baahi badan nahay nabad inaynu ku naaloonno amni inaynu helno ummadda Soomaaliyeed gees ilaa ka gees ay isku socoto si amni iyo walaalnimo leh ay markaasi muxuu sayl ilaa Raskamboni iskugu gudubto oo jidadkeenu isku furmaan oo baamishkeenu isku furmaan oo geeskeena aan ku noolnahay barwaaqadihi aynu khayraadkeeda la soo baxno taasaynu u baahannahay waa muhiimad culayskeeda la weyn waxaynu u baahannahay horumar xilli aan ku jirno dalalka ugu faqiirsan adduunka oo ay sanadkii la soo dhaafay 6 milyan ku dhawaad ummaddeena Soomaaliyeed ay ku jireen macaluul ay ku jireen xilliyada ugu adag baynu ku jirnaa dalalka ugu faqiirsan baynu ku jirnaa tabaalada ugu weyn bayna haysata inaynu horumar tiigsanaa oo aynu isu taagno dhammaanteen inaynu horumar iyo muxuu barwaaqada dalkeenna eegaagta inay ummaddeennuna ka gaajooto ay gaajo ugu dhimato waxa weeyaan waa aqligii oo muxuu ahaa si wanaagsan loo agaasimi waayo taas baynu markaasi ku gaari karnaa waa midnimo waa muxuu nabad waa horumar waa muhiimada culus waa muhiimada u baahan dabar adayg waa muhiimada u baahan dulqaad waa muhiimada u baahan inuu qofku sabir u yeesho in wax laga sheego in wax la toosiyo in la mucaarado in muxuu laga hor yimaado in muxuu tala u wadaago in lala taliyo in muxuu ummadda Soomaaliyeed aqligeeda iyo maskaxdeeda u mideeyo si ay muxuu u jihaystaan wanaagga iyo horumarinta taasna waxaan isleeyahay xisbiga uu hogaaminayo professor xasan sheekh maxamuud oo la ogaa dulqaadkiisa iyo qosolkiisa iyo farxadiisa iyo muxuu dhabar adaygiisa uu maanta hogaaminayo waxaan isleeyahay xilligan waxaan xasuusanayaa oo muxuu ahaa suugaanta Soomaaliyeed tii ahayd muxuu ahaayay heesteennii qaranka ee ahayd muxuu ahaay Soomaaliyeed toosoo man xasuusanay erayro kooban baan markaa aanu isleeyahay lagu bogta casriyeeyo u baahan si ay uga turjunto xilliga aan ku jirno ay uga turjunto inaan kalimaadka markaasi muxuu idinla wadaago kalimaadkaasi waxay odhanayaan waxay leeyihiin markaasi hadday si kooban u idhaahdo iyadoo waqtiguna muxuu ahaay uu eryayo taariikhina noqoniyo geeskaba ka tiranayo inantaa baqaadnaabay taladeedii joogtaaye
طلقودان هانجرنايو إسريو تفير قوله قبني موضو تامته تفرار قيدي ليه waxaan ku taamayaa dowladnimo taabaqaadee inastaageersanaabaan taladeedii haynaaye Somali toso isku tiirsadaw hadbakiina taagdarane taageera weligiine Soomaaliya ha noolaato ha israacdo ha walaalowdo ha midowdo nabad iyo horumar ha ku naalooto waad salaamantihiin